success قول وأري عصر قدام بآد لوجو عليه لقيه نونين بدن مغلان أما دقالها لقى والرمية أما عيارها لقى والرمية أما وحكلا له عد بقولي ستبا بدن مغشان سؤال ربينا نسويدينا وحويان قول موقفك بني آدم خلوا ورن كراو قوليستي قوش السمحة لقو قياسه محوية هاي مقياس كنبطة فوز كمسي يقول سكسس كمحا لقو قيمية هدينو ندهنا نولشا أيوكو قوليستي قفكو نولشو وإنتي ما إنتان سنوات كان دونك اللي تشوغيا مسوا آخره مركا لغو درا نولشو قفكو نولانا يوردن ما لغو قياسي كراقوشا مالك إيا منصبك إيا مقع إيا ماموسك وقفكو هلو كلمة فوز في اللغة واحد هذا هو نجاة من مرغوب وتحصيل لمرغوب بينادين ووحاد كعب صنيسو كان نبت قشيد إيا وحاد رادعين يسو وادهشيد أو الظفر بالخير مع حصول السلامة بين هذا وإن وحشه وحي خير كي وانا قادر رادين يسي نبتنا كان نبت قشيد إذن قفك بني آدم كاهي قول استربضا بوليا ما أهداف تربضا مركز تو هدف حقيقي وحلا إله هو قوليستي أرضيقا هدف كيسا كواد وحويان إنه سكول كردمايا ما جامعة دردمايو معناته شهادة السوقاته حولي وان قوليستي امتحانكي وان دمايا وان قوليستي نينك السياسي waxa laga yaabaa hadafkiisu inuu yahay boos siyaasi inuu gaaro maalinta kursiga fuulo waxa la oranayaa xisbigaasi ama ururkaasi uu guuleystay laakiin dhab ahaan goormay noodan karnaaba qofka bini aadamkii nolosha ku guuleystay waxaan odhan waa ahdaaf marxaliya waxay ku gabagaboobaysaa inuu raahno noloshii waad guuleysatay iyo noloshii waad khasaartay wax ka dhaxeeya ma jiraan simple goals kan marka la isku wada daro hadaf baad nolosha ka leedahay nolosha hadafkeeda haddaad asiibto oo meesha aad u socotay aad gaadhana waad guuleysatay haddii kalena lama guuleysanin ولذلك سؤال waxay noqon kartaa oo hadafka nolosha ka leenay marka muxuu yahay ma inaynu cunno cabnaaba ma in shahaadad la qaataaba ma in lacag la helaaba ma in magac iyo maamus la helaaba life purpose kaagu muxuu yahay hadafka aad leedahay goolka aad nolosha maxaad u noosha inaad maxay xaqiijiso qofka binaadamku inuu hadaf leeyahay meel uu socdo oo rabo inuu gaadho qof nooli inuu wax cunaa ma jiro noolo waa wax cuno soo toosoo kac dabeetana 60 sano markaad gaadho xabaasha lagu geeyo that's not a life nolol ma hataasi qiimo ma samaynayso waxaynu isweydiinaynaa markaa hadafkeenu nolosha kalena waa maxay si markaynu ku guuleysanana inuu dhaano hebel noloshiibu ku guuleystay marka la waayana inuu dhaano hebel noloshiibu ku khasaaray ila labada midun haddaad nolosha hadaf ka leedahay meel aad u socota hadday jirto meeshii markaad gaadhana waxaan odhanayaa waa guuleystay markaad gaadhi weydana waxaa la odhanayaa wuu guul daraystay muu guuleysan success ma gaadhin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay goorta la guuleystaa goortay tay wuxuu kaloo inoo sheegay nolosha tan iyo hadafka laga leeyahay wuxuu yahay waxaa la inoo sheegay dadka inta guuleysatay iyo inta khasaartay quraanka intaas oo aayadod ba ka soo arooray oo ka waramaya alfaa'izuun intaas oo aayadod ba ka waramaya alkhasiruun wana macnaha dhabta uu noloshu leeyahay marka labadaasi kala garato rabbi subhanahu wa ta'ala marka nolosha iyo hadafkeeda iyo wax oo dhan iyo guusheedaba miqyaas baa loo yeelay
يعني نولش هدانو تشيرين ثرمومتر أما بارامتر أما wax lagu qiyaasa hadaanad haysanin يعني guriga dhererkiisu waa imisa waa inaynu haynaa waxaynu ku qiyaasano markaynu haysano miqyaas la saaro ayaynu isla garanaynaa dhererkiisu intuu yahay laakiin haddii nin waliba isha ku eego wax saxa soo bixi mayso marka wax la qiimeynayo wuxuu doonaba ha ahaadee waa inuu jiraa waxaad haysato oo barometers aad leedahay markaad kaatigarayso waxaas waa la qiyaasi karaya waa la gaari karaa inuu jiro rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kullu nafsin dhaa'iqatu lmowt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور سورة آل عمران بقول سيدتن يشن بقول سيدتن يلح لبدا آيادود يسكحي ربي وحليه سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت wax kasta oo nool geeru dhadhaminaya muntaha hayati dunya weeyaan baalalay inta doonta joog way dhamaanaysaa wa inma tuwaffawna ujurakum waxa laydin wafeynaya laydin dhamaystiraya adduunka waa laga yaabo wax yar yar wa min amalika inaad dhadhamiso sawaan kanat positive iyo negative kay doonaysa ha noqoto waxyaabihi aad shaqaysay wax ka mid ah haday qadhaadhaydna waa laga yaabaa nolosha wax ka mid ah inaad ka soo dhadhamisay haday macaanidna waa laga yaabaa nolosha wax ka mid ah inay soo dhadhamisay laakiin waxa la yidhi taas iyadu way dhamaanaysaa absolutely waa dhamaynaysaa laakiin waxa lagu dhamaystirayaa baa la yidhi camalkoo dhan wixii aad qabatoo dhan abaalmarkiisa waxaad wada helaysaa inama tuwafawn wafa baa lagu isticmaalay waxa laydin oofinaya laydin dhamaystiraya ujurakum yawm alqiyama ba ilaahay yiri maalinta qiyaama alxayaat alukhra xayaat alukhra aakhira markaynu gaadhno nin walba shahaadadiisa la siinaya qalin jabintaadii adduunka intaad joogtay imtixaan baad saxaysay papers baa lagu dhiibay waxa laaliya waxaad adduunka ku hayso dhan side ku doonaha ahaado haddaad madax ahayd waraaqaad buuxinaysay haddaad lacag haysatay waraaqaad buuxinaysay haddaad faqiir ahayd waraaqaad nolosha dhammaanteed imtixaan bay ahayd aad ku jirtay imtixaankaagaasi resultkiisii jawaabtiisii waxaad helaysaa baa lagu yidhi maalintaad qiyaamahaysa soo taagto ayaa lagu dhiibayaa jawaabtii imtixaanka سادرادت بإلهي وحولي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نيكا قولي قولي استوى كانوا مرة بيري نار نيكي لغا نفطه زحزح نيكا النار تهف لغا صوصية لغا إلالية لغا درقية وأدخل الجنة جنة لقية كاسب إلهي لي فقد فاز مقياس الفوز مكاواكن قور موقفكو قولي استي wuxuu guuleystay markuu naar ka badbaado ee janno galo ayaa rabbi tilmaamaya ama adduunka inta joogteen waxaad guule ku sheegayseen oo dhami wama alxayaatu dunya ila mataacu alghurur ba ilaahay ku xigsi nolosha adduunyo waxa bidbidka lagu kadsoomo nolosha adduunyo gebigeeduba bidbid lagu kadsoomo bay ahayd ba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala ayada ku xigta ilaahay markaa wuxuu yiri waan idin imtixaamaya xoolaha nafta ayaa idinku imtixaamaya gaalada la idinku imtixaamaya ayo ahlu kitaabka iyo waxa la mid ah war badan iyo mushrikiinta ba adan kathiran ba ka maqli doontaan ba ilaahay yiri wax badan oo idin dhiba adiyad badan ma nimanka ka maqli doontaan ba ilaahay yiri ee waa in tasbiru wa tattaqu sabrkii taqwada loo baahnaa hadaa la timaadaan waa azmi al-umur ba lagu tilmaamo